وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وندا معلمك وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وندا معلمك واجي بريبا أو بحلقة ورابشو واجي بريبا أو بحلقة ورابشو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجب كيس وحنبار واجب كيسا وهسن مينو وابن مينو وروريقي مينو ويوان مينو وهسن مينو وابن مينو وروريقي مينو ويوان مينو قول وعن عدوك وابدو نولو الوناكسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كبعدي هل كان ما أنت مقعي وحوين وعبد الفتاح من شيخ هذا ومعلم كيف في سيريس كدقي شري أمن سكندري سكول عشان هذه إن وكرانه وقابيه وحبرشوا نضلك ويحريهن سادر عدد عشان هذا إنه سعني أين دون هب أونلاين أين سكسو قارسينه ما أنت واحد بلاوينا مادة في سيريس كشابتر كي أها هذه أكتيفيتي أين بلاوي دونا radioactivity waa ka fal ama waa ka shay radiation soo deynaya ashyaada kala duwan materialooyinka kala duwan waxay soo saaraan radiation ciidan radiation bi soo saaraysa dhagaxaanta gidaarada waxaas ba radiation ay soo saarayaan marka bal xilma waxaan la ogaaday radiation-ka xilma la ogaaday radiation-ka waqtigii ugu horeeyay la ogaaday waxay ahayd nin Franca ayaa ogaaday Henry Becquerel loo dhanayay uranium uriyaha uranium oo meel yaalla ayaa sameynay radiation photographic film baynu haysanay photographic film-ka ayaa waxa ku dhacaysay background-kiisu madow buu noqday waxaana madooweynayay background-ka madow ka dhigay film-keena yar waxa weeyaan radiation-ka ayaa deetana la daraasiyay deetana waxa la ogaaday wax invisible ah oo aan la arkayn inay sababayaan waxa loo yaqaano inuu shucaac madow ku sameysmo photographic film-keen kaasaynu ku magacaabnay marka radiation ka ah buu soo deynay ayayna oran marka curiyaha waxa ogaaday in radiation soo deynayo waxa ninka loo yaqaano Henry Becquerel muddo ka bacdi ayaa hadana waxa la ka fargareeyay Maria gabadha la yiraahdo ayaa waxay ogaatay Maria Becquerel Maria Curie ayaa waxay ogaatay waxa loo yaqaano curiyo kale ikhtiraacday oo ay ugu magac dartay dalkeedii oo loo yaqaano plutonium Poland bay ka soo jeeday marka waxay ugu magac dartay dalkay ka timi ee native-ka u dhalatay plutonium baynu la baxnay ninka isqabeen gabadha isaguna curiyo kale isaguna ikhtiraacay isaguna loo yaqaano radium curiyaashaasi waxa weeye radioactive material ay weeyaan maanta marka waxaan ka hadlaynaa intaas waa history-gii iyo sidii wax loo ogaaday iyo inay radiation jiro qoladii ogaatay ashyaada soo saareen curiyaasha radioactive-ka intii la ogaaday bay ahaayeen marka waxaan eegaynaa radioactivity waa maxay radioactivity baynu ka bilaabaynaa definition-kiisa laysankeena koobaad radioactivity is a emission of subatomic particles waa soo deynta subatomic particles aynu soo deyno and raises iyo fallaadha la soo deynayo from the nucleus of atom kaasoo laga soo deynayo atomka nucleuskiisa electronada soo deyn maayaan nucleuska atomka ayaa laga soo deynaya subatomic particles iyo raises subatomic particles ka iyo raises-ka si gaar ah inuu qaadan doonaa inuu tiri doonaa radioactivity-geenu laba qaybood bay u qaybsantaa natural radioactivity iyo artificial radioactivity
qaar si naturaliya isaga dhaco radiation ka sameeyo ka sameeynaya iyo qaar aynu sameysana man made ah natural radioactivity-ga xilli moo dhici kara atomic number-keenu markuu ka weynaado 28 atomic number-keenu markuu ka weynaado 28 ayaa waxa dhacay baynu odhanaynaa waxa loo yaqaan maxay radiation baa inoo dhacay oo curiyahaasi hadduu atomic number-kiisu ka weyn yahay 83 hadduu noqdo 84 hadduu noqdo 85 hadduu noqdo 90 hadduu noqdo radiation naturaliya ayuu soo deynaya si naturaliya oo radiation u sameynaya kuwaasi waxay noo soo saaraan invisible radiation aynaan arki karin ayaa dhacaysa artificial radioactivity isagana sidaynu u samaysan horta magaca kale aynu naqaana waa induced radioactivity waa mid aynu abuurnay weeyaan sidaynu u abuuraynaa waa change nucleus inaynu wax ka bedelno nucleuska atomka waa inaynu wax ka bedelnaa si uu shaygan radioactive u noqdo nucleuska maxaynu kaga bedeli karnaa nucleuska laba qolo baa ku jirta proton iyo neutron baynu ka helaynaa ama neutron waa inaynu meesha ka qaadnaa ama waa inaynu neutron gelinaa ama proton geli ama neutron geli nucleuska si aynu wax ugu bedelno laba position laba option baynu yaalaa ma waxbaynu ka qaadnaa mise waxbaynu siinaa keebaynu awood u leenahay keebaan se dhacay ayaynu leeyahay give in iyo give out add in iyo remove inaynu proton iyo neutron ka remove garayno iyo inaynu ku darno neutron iyo proton keebaa ugu fudud haddii qaadista noqoto nucleuska waxba kama qaadi karno taasi waa impossible aqli gal ma aha inaynu si fudud wax uga qaadno oo aynu nucleuska aynu soo dhanna wax ka qaada ma dhacayso taas maxay u dhici weeyeen nucleusku waa xooga ugu weyn ee dunida ka jira nucleus buu ku dhex jira nucleuska atomka ay xoogaasi isku haya waa xooga isku haya proton iyo neutron meesha yaala xoogaasi aad iyo aad buu weyn yahay xoog ka weyn dunida guudkeeda ma jiro marka xoog aynu kaga soo qaadi karno neutron ama proton ma haysanaba waaya u kaalay xagan inaynu wax gelino neutron inaynu gelino iyo proton inaynu gelinna labadaas aynu eegin proton haddaynu soo dhanna geliya ma gelin karna isagana oo nucleuskeena proton ay noo yaalay haddaynu atom baynu haysanaa helium baynu haysanaaba helium laba proton iyo laba neutron baa u yaala nucleuskeena haddaynu soo dhanna proton geliya proton haddaynu soo dhanna geliya protonka waxa repulsion ku soo sameeyaa protonada halka yaala ayaa repulsion ku soo sameyn doona dan isla halkii uu dib uga soo noqon doona isla halkii uu buuhe dib uga soo noqon marka proton ma gelin karna isagana oo repulsion baa lagu soo sameyn protonada yaala meeshaana repulsion ku soo sameyn waxaynu gelin karnaa nucleuskeena waxa weeyaan waxa loo yaqaano neutron baynu gelin karnaa neutronka sidaynu gelin by force baynu ku gelin force baynu ku gelin doonaa neutron ayaa inoo fudud inaynu gelino neutronku waa no charge ma leh kaasaa ugu fudud inaynu nucleuskeena inuu wax kaga bedelno deetana nucleuskeena waxaynu ku abalay garayn doonaa proton neutron baynu ku abalay garayn neutron baynu gelin doonaa proton kama waynu ka qaadi kari weynay neutron waynu ka qaadi kari weynay proton ma gelin karno oo repulsion bay ku soo sameynayaan neutron baynu ogolaaday inay nucleuskeena gelino then it's forced the neutron waxaynu ku force garaynaynaa nucleuskeena neutron baynu gelin taasun baa possible ka noqotay saddexdii kale possibility aqli gal way noqon waayeen impossible bay noqdeen halka possibility aynu haysanaa waxa weeye nucleuskeena si aynu wax uga bedelno waxa weeyaan inaynu adeegsano neutron ku abalay waa shay atom stable ayaynu u baahanahay inaynu ka dhigno waxa loo yaqaan unstable atom halka qodob baynu kaga dhigi karnaa
waxa loo yaqaano unstable nucleus kaasun baynu ka dhigi karnaa oo nucleuskii markii neutron ku abalay garaynay aynu gelinay neutronada meesha yaala iyo protronada meesha yaala way kala badan yihiin saddex neutron iyo laba proton baynu yaala meesha waa unstable nucleus hadduu shaygu unstable nucleus noqdayna waxa radiation buu soo deynaya characteristics of radioactivity dabeecadaha uu leeyahay waxa loo yaqaano radioactivity dhowr example baynu ka qaadan radioactivity shayga radioactive ka si continuously u sameeyaa waxa loo yaqaano decay u burbura for example waxaynu haysanaa 100 xabo oo dhagaxaan ah ayaynu haysanaa shaygan radioactive ka wuu burburayaa marba in baa burburaysa waxay la mid tahay burburkaasi si continuously u burburayaa waxay la mid tahay dhagaxaanta meesha inoo yaala inaynu kolba maalin ba wax ka qaadano meesha kolba meel wax ka qaad meesha markii dambe shaygu wuxuu noqonayaa stable buu noqonayaa markuu stable ka noqdo decay-ga uu joojinaya burburka uu joojinaya decay-ga uu joojinaya ha inta uu radioactive ka yahay decay-gu burburku uu soconaya ama joog muqmadaynu soo dhiganay galaaska joogga muqmada kolba maalinba laba xabaynu kala baxnaa laba xabo jooggi marka dambe maxaa ku dhici doona inuu madho uu dhamaado shaygana inta radioactive ka ah markay dhamaato shaygu wuxuu noqon doonaa stable buu noqon marka shayga radioactive ka wuxuu sameeyaa waxa loo yaqaano continuous decay burbur joogtaa buu sameeyaa they produce radioactivity wuxuu soo saaraa bright flash ayuu soo saaraa iftiin bay soo saaraa shayga radioactive ka maxaa kamid ah example inoo noqon kara compoundada sameeyo maxaa kamid ah zinc sulfate ko kala sameeyo zinc sulfate ko kale wuxuu sameeyaa iftiin buu sameeyaa iftiin waxaynu maqalnaa aw hebel ama sheekh hebel xabaashiisu way iftaa xabaashu way iftaa maxaa loo jeedaa dadkii waxa la yiri waxa weeyaan waxa jira waxa loo yaqaano ninkan waa awliyo waa ka xabaashiisu way iftiinta waa saasa dadka looga dhaadhiciyo nabi maxamed bay xabaashiisu iflahay haday xabaalaha awliyadu ifayso laakiin maxaa jira zinc sulfate baa lagu daray qubuurahan sheekh hebel leeyahay way ifaysa xabaashiisu zinc sulfate ku jira waa compound sameynaya radiation sameynaya markastoo aad ku soo dhawaato xabaasha iftiinkiisu uu yaraanaya hadduu sheekhani awliyo yahay oo de iftiin uu leeyahay ma markaynu ka fognahay baynu iftiinka dareemi lahayn mise markaynu ku dhownahay oo iftiinku inoo badan ah de sida caadiga wuxuu iftiinku bataa marka aynu sooraska marba ku soo dhawaano guluub baynu haysanaa guluubkan iftiimaya markastoo aynu ka fogaano iftiinku uu yaraada markastoo aynu ku soo dhawaanana de iftiinku uu bataa xabaashu waxay ahayd in iftiinku aad u bato markay aad ugu soo dhawaano laakiin markaynu meel fog ka joogno ayay iftiinkan dareemayna marka ashyaada sameeyo waxa kamid ah zinc sulfate oo waynu dareynaa meelaha qubuuraha kala in la yiraahdo shayga aw hebel xabaashiisu way iftaayo kale marka waxa ku jira zinc sulfate bay inuu jira they cause the ionization of air molecules hawada waxay ka dhigaan charged particles ionization bay ku sameeyaan way charge gareeyaan hawada radioactivity shayga radioactive ka air particles keena charge buu ka dhigaa shay charge gareysan buu ka dhigayaa they can destroy the germination seeds waxa burburaya ay burburin kara radioactive shayga radioactive ka burburin kara seeds keenu ayuu burburinaya and can kill the bacteria bacteriadana wuu dili karaa bacteriooyinka wuu naga dili karaa shayga radioactive ka types of radioactivity ama types of radiation imisa nooc baa radiation ka sameynaya saddex nooc baa inoo sameeya waa alpha radiation beta radiation iyo gamma radiation saddexdani laba isku raacaan mostly labada isku raacaan waxa weeyaan alpha iyo waxa israaca gamma
hadduu shaygaasi uu radiation sameeyo laba unba meesha laga helayaa oo laba isku raacaya shaygan ashyaadeen radiationka sameynaya waa alpha iyo gamma sidoo kale waxaa israacaya beta iyo gamma labadaas isku raacaan shaygaasi dhikay markuu sameeyo radiation soo daayo waa in la helaa alpha iyo gamma ama beta iyo gamma laba isku raacaya sababtu waa maxay gamma markii ka hari mayso waxay ugu hari weyday waxa weeyaan energy bay sidaa energy ayayna sidaa ka hari mayso marnaba marka casharkeena maanta intaas ku salaysan yahay waxaynu soo qaadanay radioactivity-geena waa maxay definition-ka radioactivity-ga ayaynu ka soo hadalnay sidoo kale radioactivity-geena imsaynu qaybinay laba qaybood qayb ah natural radioactivity iyo qayb artificial radioactivity oo man made oo inagu aynu sameynayno kuwa natural radioactivity waa kuwa atomic number-koodu ka weyn yahay 82 ayaa natural radioactivity sameeya kuwa muxuu ahaa artificial radioactivity-guna curiyo walba waynu ka dhigan karnaa radioactive material inuu kuwa u adeegsanayna waxa loo yaqaano by forcing neutrons ama extra neutrons aynu ku darayna nucleus-keena proton ma ka qaadi karno nucleus-keena neutron kama qaadi karno sababtu waxa weeyaan xoog ugu weyn nucleus-ku ku geedi jira sidoo kale kama qaadi proton ma gelin karno laakiin neutron ba awood aynu leenahay inaynu gelino sidoo kale waxaan soo qaadanay characteristics-ka radioactivity-ga dabeecadaha radioactivity-ga inuu leeyahay oo aynu afar ka qaadanay waxa kale aynu soo qaadanay waxa loo yaqaan types of radiation ashyaada radiation-ka sameeya inta yihiin imsa ay u qaybsamaa ashyaada radiation-ka sameynaya saddex bay u qaybsamaan baynu oranay waa alpha iyo beta iyo gamma intaas aynu ku joojinaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno guul wacan cadowka waabto nolol wanaagsan iyo barwaaqo nabad lagu wadaago akuwaano waadankeenu guul wacan cadowka waabto nolol wanaagsan iyo barwaaqo nabad lagu wadaago akuwaano wadankeenu waa wadnihii jirhkeenna waraabinay dhiigo aan ku ardina wadankeenu waa wadnihii jirhkeenna waraabinay dhiigo aan ku ardina